Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Bannooda Media waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa barnaamijyo kala duwan iyo qisooyin dhab ah. Bannooda Media haddii aad member ama xubin ka tahay waad ku mahadsan tahay, haddii aadan member ka ahayn fadlan nagu soo biir. Waxaan jeclahay in aan halkan idiinku soo gudbiyo qisooyin dhab ah oo cajiib ah, waa dhacdooyin oo aan goobjoog u ahaa xilligii dagaalada sokeeye ka socdeen Soomaaliya. Qisidan ama dhacdadan waxay ka dhacday magaalada Baydhabo, magaalo madaxda gobolka Bay, sanadku markuu ah 1992. Waa dhacdo oo aniga goobjoog u ahaa. Xilligaas waxaa magaalada Baydhabo ku sugnaa Maleeshiya USC, kuwaas oo ka soo laabtay gobolka Gedo, goobtaas ay ku dagaalameen ciidamo taabacsanaa madaxweyne hore Siyaad Bare. Xilligaas gobolka Bay waxaa guddoomiye ama gofernar ka ahaa nin lagu magacaabi jiray Shariif oo ka soo jeeda gobolka Galmudug. Magaalada Baydhabo wax maamul oo rasmi ah kama jirin xilligaas. Shariifka keliya ayaa ka talin jiray. Gobolka Bay ama magaalada Baydhabo waxaa ka jirtay macluul iyo gaajo aad u daran. Xilligaas magaalada Baydhabo waxaa loogu naanaasayey ama loogu koofaari jiray magaalada dhimashada, Dead City, maadaama dadka ku dhimanayay oo aad u badnaayeen. Dadka oo u dhimanayay macluul iyo gaajo qiyaastii waxay ahaayeen 200 ilaa 300 qofood maalintii. Macluushaas ma ahayn mid rabaani ah, waxay ahayd macluul oo banwaadim abawray, manmada famine. Magaalada Baydhabo waxaa ka howlgeli jiray dhowr hayadood caalami ah oo ay ka mid ahaayeen hay'ada Laanqeyrta Cas, ICRC, Care Australia, CRS, World Vision iyo Laanqeyrta Cas waxay magaalada ugu furnaa dhowr jiko oo lagu quudin jiray dadka barakacayaasha oo aad tiro badnaayeen. Isla markaas waxay raashin u diri jirtay magaalooyinka kale ee gobolka, degmooyinkaas waxaa ka furnaa jikooyin. Isla markaas waxaa raashin loo diri jiray tuulooyin ka tirsan gobolka Bay. Raashinkaas inta aysan gaarin meelihii ama goobihii loogu talogalay waxaa dhac ama boob jiray dhalinyaro Mooryaan ah oo hubaysan, kuwaas oo badankooda ahaayeen kuwii ku haray magaalada iyo kuwa kale u dhashay gobolka. Waxay raashinka u iibgeyn jireen suuqa weyn ee magaalada Baydhabo. Mida kale, magaalada waxay lahayd hal ceel oo reeg ah, waxaa gacanta ku haysay qof dumar oo waayeel ah, waxaa ku wehliyey Mooryaan hubaysan, dhammaantooda waxay ka soo jeedeen gobollada dhexe Soomaaliya. Qoftaas waayeesha ah waxay gadan jirtay biyaha ceelka. Intaas waxay ahayd horudhac kooban xaaladda magaalada Baydhabo xilligaas. Haddaba qisada aan u guda galo. Magaalada Baydhabo waxay leedahay garoon diyaaradeed oo weyn. Maamulka garoonka waxaa gacanta ku dhigay nin la dhihi jiray Guutaale iyo Maleeshiya ama Mooryaan hubaysan oo asaga ka amar qaato. Guutaale iyo Mooryaanta waxay ka soo jeedaan gobollada dhexe Soomaaliya. Guutaale wuxuu la baxay ama isku magacaabay taliyaha garoonka Baydhabo. Guutaale markiisa hore wuxuu ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, guutada 6 Eber ee Baydhabo. Wuxuu ahaa wadi baabuur booyad oo biyaha qaado inta uusan dagaalada sokeeye ka dilaacin Soomaaliya. Marka maleeshiyada USC ka soo laabteen gobolka Gedo, waxay ku hakadeen magaalada Baydhabo. Guutaale wuxuu kala baxay qaar ka mid ahaa maleeshiyada, kuwaas oo tol ahaan asaga isxigeen. Maleeshiyada qaarkood waxay u gudbeen Muqdisho, qaarna waxay ku hareen magaalada Baydhabo. Guutaale wuxuu lahaa hal gaari yar kuwa raaxada ah iyo hal gaariga gaashaaman beebe. Wuxuu xafiis ka samaystay dhismaha saraakiisha xoogga dalka Soomaaliya oo ku yaalay garoonka agtiisa. Guutaale asagoo sheeganayo taliyaha garoonka, wuxuu lacag baad ah ka qaadi jiray diyaarad kasta oo ka soo dega garoonka. Lacagtaas oo jeebkiisa gaar ah ku dhici jirtay. Diyaarad oo aan lacag bixinin kama soo degi karin garoonka, kamana dooli karin. Guutaale wuxuu deganaa gudaha magaalada, marmarka qaarkood wuxuu ka haysan jiray gaariga gaashaman beebe. Asagoo ku wado hawaari sayd ah, waxaa dhici jirtay in uu dardarsiyo haweenka iyo carruur ku iibiyo biyo, qoryo iyo wixii la mid ah waddada dhinaceed. Wuxuu meeshaas ku dilay kuna dhaawacay dhowr qofood. Sanadka 1992 aakhirkiisa waxaa magaalada Baydhabo laga furay xafiis Unsom hal, anigana waxaan nasiib u helay in aan noqo qof ugu horeeya oo Soomaali ah shaqo ka bilaawo xafiiskaas. Xafiiska oo cusub waxaa ka howlgeli jiray aniga iyo nin ajanabi ah. Maalin maalmaha ka mid ah, waxaana soo gaaray taar, waxaana lagu wargeliyey ninka mas'uulka ah xafiiska Unsom hal oo Amerikaan ahaa in uu ka soo dhoofo Baydhabo oo yimaado Muqdisho, maadaama nabadgelyada Baydhabo aysan fiicnayn. Waxaa loo soo diray diyaarad Antonov. Aniga iyo ninka mas'uulka ah waxaan aadnay garoonka diyaaradaha.
Istaafka nala socday waxaa hubkooda looga reebay iridka laga soo galo garoonka. Nasiib wanaag, Guutaale ma joogin garoonka wakhtigaas. Marka aan ismacsalaamaynay mas'uulka oo diyaaradda fuulay oo diyaaradda duuli rabto oo markaas dhaqaaqday, waxaa yimid Guutaale oo la socdaan dhowr nin oo hubaysan. Wuxuu igu yidhi, waryaa jooji diyaaradda. Waxaan gacanta u taagay wadaha diyaarad. Wuxuuna wadaha diyaaradda ama bayloodka u qaatay in macsalaamaynayo, asagana gacanta ayuu ii tegay. Guutaale wuxuu malaynayay in aan joojin karo diyaaradda duuli rabto. Diyaaraddii sidaa ayay ku duushay. Kadib marka diyaaradda duushay, Guutaale wuxuu igu amray in aan fuulo gaarigiisa. Marka aan ka diiday, mooryaanta la socotay waxay igu soo taageen qoryahooda, waxay si khasab igu saaray gaarigiisa. Waxay i geeyeen qol ku yaallo irida laga soo galo garoonka. Waxaa la igu xiray qol, waxaan qolka ka dhex helay kaartoon, waan isku fidiyey. Dhowr saacadood kadib waxaa yimid nin ajambi oo aan isnaqaano u shaqeeyo UNICEF Baydhabo. Aniga ayaa u turjumay, waxaan noqday maxbuus turjumaan ah. Guutaale waxaa loo sheegay in aan ahay shaqaale yuunka, wuxuuna ka codsaday in uu isoo daayo, wuuna ka diiday. Wuxuu ku yidhi ninkan dembi buu galay, waxaa loo gudbinayaa Muqdisho. Sheekada marka laga maqlay magaalada, koox dhalinyaro ah ka soo jeeda gobolka waxay isu diyaariyeen in wareer lagu soo qaado Guutaale iyo mooryaantiisa si la iga soo daayo xariga. Arrinta waxaa maqlay nin jeneraal ah oo maalintaas booqasho ku yimid Baydhabo. Jenaraalka oo ka soo jeeda gobolka Galmudug wuxuu yidhi, wax tallaabo ah yaan la qaadin, arrinta aniga ayaa dhammaynaya. Marka ay ku dhowdahay qorax dhici, waxaa meesha aan ku xirnaa yimid dad odayaal ah. Guutaale waxaa loo sheegay in ay ka socdaan jenaraalka oo ku sugan Baydhabo. Waxaa lagaa rabaa in aad soo dayso ninka meeshaan ku xiran. Nasiib wanaag, Guutaale wuu ka yeelay, sidaas ayaa la igu soo daayay. Guutaale marka uu maqlay in ciidamo Ameerikaan ah ayaa imaanaya magaalada Baydhabo, wuxuu igu yimid xafiiska UNSOM. Wuxuu igu yidhi, waxaan kaa rabaa in aad igala hadashid ciidanka Ameerikaanka marka ay imaadaan in shaqo i siiyaan. Guutaale wuu ilooway dhibta iyo xiriga uu ii geystay. Waxaan ugu jawaabay, ma u malaynayo in aan wax ka qaban karo arrintan, sidaas ayuu iga tegey. Maalmo kadib, waxaa magaalada soo degay ciidan Ameerikaan ah, UNICEF, waxayna degeen garoonka diyaaradda Baydhabo. Guutaale oo filayay in shaqo ay siiyaan Ameerikaanka wuxuu ku wareejiyey hubkii ciidankiisa mooryaan wateen. Sheekada maanta intaas ayay ku eg tahay. Wakhti dhow waxaan idiin soo gudbinayaa qaybta labaad sheekada, insha Allah. Mahadsanidin, sidaas iyo nabadgelyo.